السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا ورarkii ugu dambeeyay xiligan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo saxaafada la hadlay taasiyeen kadib waxa uu soo bandhigay dadkii ku waxyeeloobay weerarkii al-shabaab ka geysteen magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha waxa uu sheegay in 26 qof ay ku dhinteen weerarkaas halka ay ku dhaawacmeen 56 kale waxa uu tilmaamay qaar ka mid ah dalalka ay ka soo jeedaan dad ajaaniba oo weerarka ku dhintay 3 qof ayuu sheegay in ay u dhasheen dalka Kenya hal qof oo u dhashay dalka Canada hal qof oo u dhashay dalka Ingiriiska 2 qof oo u dhashay Mareykanka iyo 3 qof oo u dhashay dalka Tanzania inta kale waa dad Soomaali ah waxana uu caafimaad u rajeeyay dadkii dhaawacmay sida Axmed Madoobe uu ku sheegay shirkiisa jiraayid hay'adaha ammaanka ayuu tilmaamay in baaritaano dheeraad ah ay ku sameynayaan qaabka qaraxaasi u dhacay iyo waliba cid la tuhmayo in ay fududeysay haddii boggan uu kugu cusub yahay fadlan saar subscribe oo riix gambaleelka si aad u heshid wararka degdega ah mahadsanid dadka geeriyooday waxaa ka mid ah Hodan Naaleeye oo ahayd gabar wariye caan ah sidoo kalena baraha bulshada caanka ahayd Hodan ayaa muddooyinkii dambe ku nooleed magaalada Kismaayo xarunta ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana ay la nooleed saygeeda oo isna ka mid ah dadkii geeriyooday waxaana lagu magacaabi jiray Fariid Jaamac waxa uu hore u soo noqday wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland sanadkii 2016 Maxamed Sahal Gacma Dheere waxa uu isna ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala warbaahinta gudaha magaalada Kismaayo sidoo kalena wakiil wareed u ahaa telefishinka SBC xarunta Kismaayo ayuu ka howlgalay waxa uu la kulmay qaraxii ka dhacay magaalada Kismaayo sidoo kale dadka geeriyooday waxaa ka mid ah nin ganacsade caan ah oo lagu magacaabi jiray Arbaco Rukun deeq ciise wabi isna waxa uu shaqeynay hay'adaha aan dawliga ahayn sidoo kalena waxa uu hore u soo shaqeeyay hay'ado ay ka mid tahay WFB dadka magacyadooda la helo waxaa ka mid ah Maxamed Ismaaciil Shooriye oo ka mid ah musharaxiinta u tartami lahayd doorashada dowlad goboleedka Jubbaland qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee xilliga goobta ku sugnaa iyo waliba dad kale oo ka agdhawaa hoteelka waxa la soo warinayay in dadka dhintay inuu ku jiro Mahad Cabdullaahi Nuur Garguurte oo ka dhashay qoys ganacsato caan ah isla markaana degan dalka Tanzania nin u dhashay dalka Shiinaha oo ganacsada ah ayaa geeriyooday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo booqday isbitaalka Kismaayo la geeyay dadka dhaawacyada qaba waxa uu mid u dul istaagay bukaanada isagoo ka xog wareystay dhaqaatiirta xaaladii ku sugan yihiin maamulka Jubbaland ayaa 13 saacadood kadib dagaalkiisa ka soo afjaray qaramada midoobe dowladda Qatar iyo dowlado kale ayaa cambaariyay weerarkaas war ka soo baxay wakiilka gaarka qaramada midoobe arrimaha Soomaaliya James Iswan ayaa lagu sheegay in qaramada midoobe ay ka xun tahay falkii ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay mas'uuliyadooda sheegatay al-shabaab waxa ay qaramada midoobe cambaareen kadib tacsi u dirtay ehelkii dadkooda ku waxyeeloobay qaraxaasi waxa ay hay'adaha amniga ka dalbatay qaramada midoobe in baaritaano rasmi ah ay sameeyaan war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Qatar waxaa dhankeeda lagu sheegay in lagu cambaarenayo weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo dowladda Qatarna waxay sheegtay in dhibka ay la qaybsanayso shacabka Soomaaliya ugu dambeyn kulan u dhaxeeyay labada gudoomiye golaha shacabka iyo aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kulankaas oo ahaa mid dib u heshiisiin oo hore ugu soo shaqeeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa lagu heshiiyay in dib loo soo celiyo wada shaqeyntii ka dhaxaysay labada gole baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi ayaa sheegay in khilaafkan muddo dheer uu ka dhex jiray aqalka sare iyo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu dambeyn isfaham laga gaaray gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu dhankiisa sheegay in heshiiskan uu dhigayo in la dhiso guddi ka wada shaqeeya danaha labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa golaha shacabka iyo aqalka sare sidoo kalena la dardargeliyo howlaha shuruucda hortaala
golaha shacabka iyo golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk Soomaaliya maadaama dalka ay ku soo wajahan tahay doorashada la filayo inay ka dhacdo 2020 ama 2021 muhiimna u yihiin wada shaqaynta labadan hay'adood wararkii ugu dambeeyay xilligan waa nageeta